بسم الله الحمد لله أصحابي ما أنت نسوي دواد ما شاء الله waxaan idin wadaa shurbad aad u fiican oo aad u fudud una fiican dadka gaaska qaba ma sha Allah tabarakallah waxyaabahan ka diyaariyay sidaan ka diyaariyay ku soo dhawaada insha Allah asxaabi halkan waxa ku haysanaa bakeeri oo misir ah hal xabo yaanyo hal xabo karoota hal xabo basal hal xabo baradho ah laba lug oo digaag ah ma sha Allah qaabkan u diyaarinayna sidaan u sameyn doono insha Allah way la wada arki doontaan halkan waxa ku haysanaa 1 litir oo biyo ah ma sha Allah tabarakallah asxaabi waa ka wada heli doontaan insha Allah waa easy ma sha Allah wax spices maanta ma isticmaali doono insha Allah intaan oo kaliya ayaan isku soo diyaarinaynaa biidni raxmaan asxaabi waan soo jarnay qudaartii ma sha Allah waa soo dhaqnay iyo chickenkii wixii dhan waa diyaar ما شاء الله تبارك الله مسرت النوع أنا يوتا لأصحابي وإنه عيب بضمتهاي أنا قاعد النوع أنا يعني استعمالها إن شاء الله حتى نديك سيجا يندبك سو صارنا إن شاء الله asxaabi digsiga ayaan dabka soo saarnay sida wada aragtaan markuu noo soo karkaro insha Allah ayaan ku wada dareynaa biidni raxmaan asxaabi digsiga way noo soo karkaray ma sha Allah haddana waxaan ku daray xogaa yar oo cusbo ah misirtii oo aan soo dhaqay haddana ku darayaa ma sha Allah haddana waxaan ku soo daraa insha Allah chickenkii oo aan soo dhaqnay ma sha Allah tabarakallah waad ka heli doontaan asxaabteeda insha Allah waxa kale oo ku soo darinaa qudaartii wixii oo dhan hal mar ayaa la maanta wax la kala shiishiilay ma jiraan waxoo dhan hal mar la isku dhex shubaa ma sha Allah wax spices ma isticmaali doono saa hore idin kugu sheegay intaan ayaan isku soo karinaa insha Allah biidni raxmaan sidee ku soo baxdo ugu dambeyn iyo qaabkay noqoto waa ila wada arki doontaan insha Allah hadan digsiga waan daboolina insha Allah asxaabi xoogaa kadib sidaa wada aragtaan wixii oo dhan way isku dhiibeen ma sha Allah qudaartii iyo misirtii ma sha Allah kulli way isku wada dhalaaleen ma sha Allah tabarakallah way bislaatay haddana ma sha Allah waa diyaar waxaan ka bixinaynaa chickenka insha Allah asxaabi chickenkii waa ka bixinay ma sha Allah haddana waxaan sameynaynaa digsiga waan soo dejinay ma sha Allah mashiinta ayaan u qaadanay waan burburinayna insha Allah waxyaabaha yar yar ka ah oo nool wixii kale dhan way soo dhan haddana si fiican aan isku burburinayna insha Allah waa shiilayna biidni raxmaan mashiinta isticmaalaya laba qaab ayaan u isticmaalaa ma sha Allah marka ukunta rabo waxay leedahay laba meel oo ukunta tan lagu qas laga geliyo oo kadib loo isticmaalo iyo burarka iyo waxaas iyo malo canjimada meeshan waxaa loo isticmaalaa baasha mashiintan oo waxyaabaha kale idan lagu burburiyo asxaabi ma sha Allah qaabkaas ayaan u soo burburinayna insha Allah shurbadani maanta sida ay ku soo baxdo ugu dambeyn si fiican markay isku aan u soo burburinaa isku soo laabanayna insha Allah asxaabi wadaad ku cusubteen channelka please subscribe haddii aad hore inoola joogtayna like asxaabtaadan u sii share garay ma sha Allah tabarakallah aad ayaan idinkaga mahadcelinaa sida wacan mar walba ila socotaan ma sha Allah tabarakallah ugu dambeyn waa isla wada arki doonaa insha Allah shurbadeena sida ay ku soo baxdo aad biyo ma ugu dhigin aadna ma u adkaynin maadaama cunto laga rabo xogaa yar ma sha Allah dhexdhexaadaan ka dhigay ma sha Allah tabarakallah sidaas ula socda asxaabteeda sharafta leh
أصحابي ديكسي عم كسو كرينا اللي ما شاء الله مكو حواير قول لين كسو شدنا ما شاء الله والفضين هذا باقولياشي ويلكي لو تلقى كسو ديارنا إن شاء الله ما شاء الله أصحابي سدا ودا aragtaan baaquliyaashi aan ku soo shubnay chickenkan waxaan sameeyay hilibka ayaan ka soo googooyay ma sha Allah tabarakallah sida wada aragtaan kor ayaan ka soo saaray ma sha Allah tabar diyaar waxaan rajeynaynaa ka wada heli doontaan asxaabteeda insha Allah soo tijaabiya باذن الله waad ku mahadsantiin daawashada videogan jazakumullahu khayra assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh iyo inoo videoga xiga insha Allah